تيك توك عما قفكي كان الله كجويو ناك تيك توك استعمال صدق وحي كدم بي وحي قتا سيل سقارب لنا مقع إله قفتها انت أسبرني أبو سورة سقاقا حيشوسيس ساقروح ذي انت اللي يابي أنا وحابي سدابة حور العين جنة فورفتك سوقات ميا ساقفتي انت بين كل بيست برفون لبدور إيالي يعني شكو برفون ميا أتك ساحبنا قفتي هذا مركا أتك بسم الله قف سقال بلود حنون سنام سريرك سوكا عن مدانيا daawadayaal ninkan idiin muuqda ee qaaday wadadii uu jeexay Afraxaasle Master Takeya ayaa waxaa la soo ogaaday in ay ahayd guurkiisa mid been ah isla markaasna uu rabay kaliya inuu magac sameeyo. Haddaba ninkan ayaa lagu magacaabaa Xasan Malabsade wuxuuna ku nool yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana uu leeyahay goob lagu gado gabdhaha waxyaabaha isku cadeeyaan ee cosmeticska. Haddaba daawadayaal xogta ninkan oo dhameystiran iyo sidoo kale markhaatiyaal ka markhaati furaya ninkan inuu beenaale yahay yaalihii Malabsade ee Universal soo fadhiistay ali soo diray akoonkiisa dad yaqaan oo iga sheekeeyeen muxuu ahay ninkan ciyaalka xaafadda waayla wax uu haayo male meel yaro oo weyn ku taalo oo qasqas lagu gado wuxuu ka yahay caawiye nin u gadgadaa odayga waxa la waa ka wareertaa la odayga wuxuu isku day wax walba hal heeso marax soo qaaday waa kala socon weysay odayga baraanka sameeyo maagay waa socon weysay vlogyo bilaabay waa socon weysay vloggiis waa kana vlogger oo cadaado uu ku tagay odayga waxaan isla leeyahay taakay qaraabay yihiin isku cidda waaye odayga taakay ay ku dayso taakay adeerka wuxuu ku soo caan buxuu isnaay afar naag adigana saddex sheego zakaka waa faan waa socon weysay baraanka isku day zakuka waa socon weysay dadka waa mari weysay waxyaabo badan isku day xakaaka turja kaaka marka odayga alaabtaan hadda inuu lagu dayo isku day abo profilkiisa dadii qaar noo soo diray waa kana waa la helay akoonkiisa la fiir ninka iska daa naagu guursaday أساسيس ويا بالعكس دحلو خبيستان برا حالة الزكاة كتانيكا مركا وضعك وحلنا هاي أبوه أنا كانوا ودي ولا فوق طيب بيناليه هي يديني هيا بلسه أنت نقول قد بين فضل المقال كان لو لقرأ سيدو كلنا كنال كان كوسو بير أدي قد هاي سبسكرايب كان بلا كنا فورنا هي سيكو وصل عن مقالة وهو ريام سوقرينا ما سنت ninkan idin muuqda ayaa waxaa la yiraahdaa Xasan Malabsade waxaanu ku noolyahay magaalada caasimadda ee Muqdisho 24 saac ay ugu dambeeyay ama labadii maalmood ugu dambeeyay wuxuu si weyn u haystay social media asagoo soo bandhigay isla markaana warbaahinta la wadaagay in uu yahay nin saddexaas la isla markaana saddexdan gabdhood oo asaga qabo arrimaha beenta keenay isla markaana lagu ogaaday ayaan idin sheegi doonaa balse ninkan ayaa muuqaalku la wadaagay warbaahinta waxa uu ku sheegay in saddexdan gabdhood uu asaga qabo isla markaasna ay yihiin xaasaskiisa waxaana saddexdooda gabdhood wareysi laga qaaday ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin noloshooda sidoo kale waxyaabaha uu ninkan soo bandhigay isla markaana sheegay waxaa ka mid ahayd in saddexdan gabdhood ay degan yihiin iyo asagaba laba qol isla markaana hal qol ka mid ah asaga degan yahay isla markaana iska soo doortaan gabdhaha si midka habeenka la seexanayso waa sida asaga uu sheegay ayagana ay ka markhaati fureen social media ayaa muuqaalkiisa lagu wadwaday isla markaana dad fara badan u maleeyeen in arrintan iyo guurkan ay tahay mid run ah balse waxaa la soo ogaaday daawadayaal inuu ninkan yahay ama guurkaas uu yahay mid been abuur isla markaana uu ka raadinayay kaliya in xaruntiisa ganacsi ay xaysiin u noqoto sidoo kale asaga uu magac ka sameeyo isla markaana loogu yeero saddexaasle waxaan ninkan isiri waxaad noqon doontaa sidoo caan u noqday Master Takeya Farxaasle ayaadna sidoo kale saddexaasle ahaan magacaas aad qabsan doontaa isla markaana aad ku noqon doontaa caan dhalay haddaba beenta ninkan ayaa la soo ogaaday isla markaana waxaa la kashifay sirro fara badan oo adiga qarsoon balse muuqaalka intaan ku soo gudbin sirahaasi dad kale oo caan ka hadlay arrintan balse waxaan ku soo bandhigi doonaa kuna sheegi doonaa waxyaabo fara badan oo laga dareemi karay muuqaalkii uu siiyay telefishinka caalamiga Universal TV oo ka qaaday wareysi ah iyo sidoo kale muuqaal ka turjumayay sida ay ku nool yihiin qoyskaasi ninkaasi wuxuu sheegay in saddexdan gabdhood uu qabo isla markaasna ay mid ka mid ah saddexdaasi ay tahay xaaskiisa koowaad halka labada kale ay yihiin kuwa soo raaca waxyaabaha bulshada muuqaalkaasi inuu been yahay qaarkood ay ku dareemeen intooda aqliga ku saaxiibka ah waxaa ka mid ah in gabdhahaasi ay yihiin kulligood kuwa isku qeyra isla markaasna ay yihiin kuwa aan muddo badan u dhaxayn guurkooda waxaana sidoo kale la weydiiyay wuxuu sidoo kale wareysi uu ku sheegay in uu muddo fara badan ay wada joogaan gabadhaasi isla markaasna ay ayada soo dooratay isla markaana ay raaliyo ku tahay in naaga kale ula guursado
waxyaabaha kale cajiibka waxaa ka mid ah in ninkan uusan wax caruur dhalin islamarkaana saddexdan gabdhood uu kasoo aruuriyey meel uu ku leeyahay shopping cosmetics halkaas oo lagu gado waxyaabaha ay dumarka isku cadeeyaan ee loo yaqaano qasqaska. ninkan dhalinyarada ah ayaa sababta ku kaliftay dad fara badan waxay isleeyihiin waa laba arrimood oo midkood kow waa inuu xayeysiisanayo xaruntiisa ganacsi si ay dad fara badan u imaadaan islamarkaana saddexaas leh uu magacaas ku dhigo. waa midda labaad in magaciisa xasan malab sida uu noqday mid caan ah islamarkaana la tartami karaa sidii uu sameeyey islamarkaana social media ku qabsaday afarxaas leh Master Taakaye. hadda wiilkan dhalinyarada ee ku nool magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxaa la soo ogaaday in uu leeyahay xarun cosmetics oo ku taala magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaas oo lagu iibiyo waxyaabaha ay dumarka isticmaalaan shoppingka iyo sidoo kale waxyaabaha ay isku cadeeyaan dumarka intooda badan ee daawooyinka la isku daro waxyaabahaas ayuu wiilkan ka shaqeeyaa islamarkaana sida loo badinayo gabdhahan waxay isku barteen halkaasi islamarkaana waxa uu siiyey uu kuna qanciyay inay warbaahinta kaga soo muuqdaan lacag sida dad fara badan ay dareensan yihiin. haddaba wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa uu is dhahay waxaad noqonaysaa caan dhalay sida uu Master Taakaye afarxaas la u noqday caan dhalay islamarkaana adigana bulshada Soomaaliyeed waxay ku bixin doontaa saddexaas la islamarkaana waxaa noqon doontaa nin baraha bulshada magac weyn ka sameeya. balse markii la baahiyey xogta muuqaalkaasi wiilka dhalinyarada ah uu ku sheegayo in uu guursaday saddex gabdhood ayaa islamarkiiba waxaa social media soo dhexgalay dad fara badan oo wiilkan aqoon u leh islamarkaana sheegay inay yihiin waxaasi warkaasi been abuur islamarkaana bulshada ku khaldoomin. dadkaas dhalinyarada u badan dad yaqaan asaga ayaa waxa ay sheegeen in gabdhahan uu soo siiyey lacag islamarkaana ku qanciyay in ay lacagtaasi qaataan islamarkaasna ay warbaahinta kala soo muuqdaan. wuxuuna sidoo kale u ballan qaaday in uu wejiyadooda u qarin doono islamarkaasna aan warbaahinta la wadaagi doonin islamarkaana cod keliya ay kula wadaagaan dareenka asaga uu rabay markaas in laga bixiyo ama ay bixiyaan. gabdhahan ayaa sida loo badinayo waxay yihiin gabdho danyar ah islamarkaana ninkan uu u adeegsaday arrimo dhaqaale iyo sidoo kale xaruntiisa ganacsi oo ay ka heli karaan sida loo badinayo waxyaabo fara badan oo lacag ka bixin lahayn islamarkaana uu siinayo haddii ay wax u sameeyaan. dad fara badan oo Soomaaliyeed oo wiilkan aqoon fiican u leh ayaa waxay sheegeen in uu maalmihii ugu dambeeyay arrimahaasi uu ka hadlayay islamarkaana dad fara badan ay sheegeen inay waxaan yihiin wax been abuur ah islamarkaana la dhoobay islamarkaana uu ninkan ku doonayo inuu noqdo nin caan ah siduu caan ku noqday Master Taakaye afarxaas leh. dhalinyaradan soo bandhigtay xogtiisa barafilkiisa Facebook iyo sidoo kale waxyaabo fara badan ayaa waxa ay sheegeen in ninkan gabdhahaasi la yaqaano islamarkaana hadda loo sheegay eheladii ay arkeen eheladii dhalay gabdhahaasi islamarkaana warbaahinta la wadaagi doono inay yihiin waxaasi wax been abuura islamarkaana uu ninkan soo dhoobay kuna doonayo in uu magaciisa kor ugu qaado sidoo kale xaruntiisa ganacsi ay ugu noqoto mid xayeysiin ahaan ay bulshada ku gaarto sidaasna ay ku barato. dad fara badan ayaa islamarkiiba waxay arkeen ninkan inuu yahay nin beenaale ah intooda indhagaradka ah islamarkaana waxay muuqaalka ka dhex arki karaan waxyaabo fara badan oo been abuur ah. ninkan sida uu sheegay waxaan deganay uu yiri laba qol oo keliya balse telefishinka caalamiga Universal TV gurigu kasoo duubay warbixinta waa guri runaantii aad u weyn oo la isdhihi kara qiyaastii waa 5 qol. waa mid labaad gabdhahaasi waxa ay markii hadlayaan laga dareemi karaa hadallo fara badan oo run ahaantii loo qaadan karo inay been yihiin islamarkaana wararkan sheegaya in ninkan dhalinyarada ah waxa uu sameeyay ay yihiin kul wax been abuur ah islamarkaana magac ku raadinaya si xoojinaya. wiilkan ayaan la ogeyn sababta rasmiga ku kaliftay inuu arintan sameeyo balse dad fara badan ayaa waxa ay dareensan yihiin kaliya inuu doonayo inuu magaciisa caan u noqdo islamarkaana social media sida uu caan uga noqday Master Taakaye afarxaas leh oo asagana doonayo. waa arki doonaa waxa ka soo kordhaa sidoo kale muuqaalo ayaa baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay lagu wareejinayo ku saabsan ninkan oo iibinaya xarun cosmetics islamarkaasna qasaya waxyaabaha ay dumarku ku cadeeyaan ee loo yaqaano waxyaabaha isku cadeeyaan cosmetics la qasqaso. haddaba wiilkan dhalinyarada ayaa la ogeyn sababta ku kaliftay rasmiga siyaasada waxaa la soo ogaaday in guurkaasi uu yahay mid been abuur ah islamarkaana uu ku raadinayo magac iyo sidoo kale inuu ku helo dad fara badan oo xaruntiisa ka adeegta islamarkaasna ka soo raaca warbaahinta xaruntiisa cosmetics-kana ay u noqoto mid xayeysiin
ay u noqoto si uu bulshada fara badan u gaarsiiyo fariinta uu markaasi dirayo. waa arki doona wixii kasoo kordha. haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe saaro, gambaleelkana furo, sii share garee muuqaalka oo la wadaaga asxaabtaada. mahadsanid. tiktok gacmaha qofkii keen allah ka gooyo. naag tiktok isticmaash hadda iyo wixii ka dambeeya waxay iga tahay siil sagaaran macnaa magaca ilaah. qoftaa intaas baranay abuu sawir isaga ka xayso siis saa quruxdeeda inta la yaabay aan waxaa bis dhaaba xural aan jannada forfet ka soo qaatay miya saa qoftii inta habeenkii la bista barfuun $2 aan yaalay isku barfuumiya u tagay saaxiibno. qoftii hadda markaan u tagay bismillah qof 9 bilood xanuunsanaa sariir ka soo kacay muddaaniyo. daawadayaal ninkan idiin muuqda ee qaaday wadadii uu jeexay afraxaasle master takeya ayaa waxaa lasoo ogaaday in ay ahayd guurkiisa mid been ah, islamarkaasna uu rabay keliya inuu magaca sameeyo. haddaba ninkan ayaa lagu magacaabaa xasan malabsade, wuxuuna ku nool yahay magaalada caasimadda ee muqdisho, waxaana uu leeyahay goob lagu gado gabdhaha waxyaabaha isku cadeeyaan ee cosmeticska. haddaba daawadayaal xogta ninkan oo dhammaystiran iyo sidoo kale markhaatiyaal ka markhaati furaya ninkan inuu beenaale yahay alihii malabsade ee Universal soo fadhiistay la soo diray akoonkiisa dad yaqaan way iga sheekeeyeen muxuu ahay ninkan ciyaalka xaafadda waayla wax uu haayo male meel yaro oo weyn ku taalo oo qasqas lagu gado wuxuu ka yahay caawiye nin u gadgadaa odayga waxa la waa ka wareertaa la odayga wuxuu isku dayay wax walba hal heeso marax soo qaado waa kala socon weysay odayga baraanka sameeyo maagay waa socon weysay vlogyo bilaabay waa socon weysay vloggiis waa kana vlogger oo cadaado uu ku tagay odayga waxaan isla leeyahay taakay qaraabay yihiin isku cidda waaye odayga taakay ay ku dayso taakay adeerkan wuxuu ku soo caan wuxuu isnahay afar naag adigana saddex sheego zakaka waa faan socon weysay baraanka isku dayay zakuka waa socon weysay dadku waa mari weysay waxyaabo badan isku dayay xakaa ka tulta ka kan marka odayga alaabtaan hadda inuu lagu dayo isku dayay abo profilkiisa dadii qaar noo soo dir waa kana waa la helay akoonkiisa la fiir ninka iska daa naagu guursaday أساتيس ويا بالعكس دحلو كخبيست يا براد حكى حالة الزكاة كتانيكا مركا وضيق الله إنها أبو أنا كان ودي ولا فوق طيب أنا لي هي يديني هيا بس أنت نقصو قد بين فضل المقال كان لولا جرى سيدو كان كان كوسو بير أديكو ده هي سبسكرايب كمبلير كان فورنا هي سيكو وصو عن مقالة وهو ريام سوقرينا ما سنت ninkan idin muuqda ayaa waxaa la yiraahdaa xasan malabsade, waxaanu ku nool yahay magaalada caasimadda ee muqdisho. 24 saac ay ugu dambeeyay ama labadii maalmood ugu dambeeyayna wuxuu si weyn u haystay social media asagoo soo bandhigay isla markaana warbaahinta la wadaagay in uu yahay nin saddexaas la isla markaana saddexdan gabdhood oo asaga qabo. arrimaha beenta keenay isla markaana lagu ogaaday ayaan idin sheegi doonaa, balse ninkan ayaa muuqaalku la wadaagay warbaahinta waxa uu ku sheegay in saddexdan gabdhood uu asaga qabo isla markaasna ay yihiin xaasaskiisa, waxaana saddexdooda gabdhood wareysi laga qaaday ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin noloshooda. sidoo kale waxyaabaha uu ninkan soo bandhigay isla markaana sheegay waxaa ka mid ahayd in saddexdan gabdhood ay degan yihiin iyo asagaba 2 qol isla markaana hal qol ka mid ah asaga degan yahay, isla markaana iska soo doortaan gabdhaha si midka habeenka la seexanayso. waa sida asaga uu sheegay, ayagana ay ka markhaati fureen. social media ayaa muuqaalkiisa lagu wadwaday isla markaana dad fara badan u maleeyeen in arrintan iyo guurkan ay tahay mid run ah, balse waxaa la soo ogaaday daawadayaal inuu ninkan yahay ama guurkaas uu yahay mid been abuur ah, isla markaana uu ka raadinayay kaliya in xaruntiisa ganacsi ay xayisiin u noqoto, sidoo kalena asaga uu magac ka sameeyo isla markaana loogu yeero saddexaasle. waxaanu ninkan is yiri waxaad noqon doontaa siduu caan u noqday master takeya farxaasle ayaadna sidoo kale saddexaasle ahaan magacaas aad qabsan doontaa isla markaana aad ku noqon doontaa caan dhalay. haddaba beenta ninkan ayaa la soo ogaaday isla markaana waxaa la kashifay sir fara badan oo adiga qarsoon, balse muuqaalka intaan ku soo gudbin sirahaasi dad kale oo caan ah ka hadlay arrintan, balse waxaan ku soo bandhigi doonaa kuna sheegi doonaa waxyaabo fara badan oo laga dareemi karay muuqaalkii uu siiyay telefishinka caalamiga Universal TV oo ka qaaday wareysi ah iyo sidoo kale muuqaal ka turjumayay sida ay ku nool yihiin qoyskaasi. ninkaasi wuxuu sheegay in saddexdan gabdhood uu qabo isla markaasna ay mid ka mid ah saddexdaasi ay tahay xaaskiisa koowaad halka labada kale ay yihiin kuwa soo raaca. waxyaabaha bulshada muuqaalkaasi inuu been yahay qaarkood ay ku dareemeen intooda aqliga saaxiibka ah waxaa ka mid ah in gabdhahaasi
ay yihiin kulligood kuwo isku qeyra islamarkaasna ay yihiin kuwo aan muddo badan u dhexayn guurkooda. Waxaana sidoo kale la weydiiyey, wuxuu sidoo kale wareysigu ku sheegay in uu muddo fara badan ay wada joogaan gabadhaasi islamarkaasna ay ayada soo dooratay islamarkaana ay raaliyo ku tahay in naaga kale ula guursado. waxyaabaha kale cajiibka waxaa ka mid ah in ninkan uusan wax caruur dhalin islamarkaana saddexdan gabdhood uu kasoo aruuriyey meel uu ku leeyahay shopping cosmetics, halkaas oo lagu gado waxyaabaha ay dumarka isku cadeeyaan ee loo yaqaano qasqaska. ninkan dhalinyarada ah ayaa sababta ku kaliftay dad fara badan waxay isleeyihiin waa laba arrimood oo midkood. kow waa inuu xayeysiisanayo xaruntiisa ganacsi si ay dad fara badan u imaadaan islamarkaana saddexaas leh uu magacaas ku dhigo. waa midda labaad in magaciisa xasan malabsida uu noqday mid caan ah islamarkaana la tartami karaa sidii uu sameeyey islamarkaana social media ku qabsaday afarxaas leh Master Taakaye. hadda wiilkan dhalinyarada ee ku nool magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxaa lasoo ogaaday in uu leeyahay xarun cosmetics oo ku taala magaalada caasimadda ee Muqdisho, halkaas oo lagu iibiyo waxyaabaha ay dumarka isticmaalaan shoppingka iyo sidoo kale waxyaabaha ay isku cadeeyaan dumarka intooda badan ee daawooyinka la isku daro. waxyaabahaas ayuu wiilkan ka shaqeeyaa islamarkaana sida loo badinayo gabdhahan waxay isku barteen halkaasi islamarkaana waxa uu siiyey uu kuna qanciyay inay warbaahinta kaga soo muuqdaan lacag sida dad fara badan ay dareensan yihiin. haddaba wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa uu is dhahay waxaad noqonaysaa caan dhalay sida uu Master Taakaye afarxaas la u noqday caan dhalay islamarkaana adigana bulshada Soomaaliyeed waxay ku bixin doontaa saddexaas la islamarkaana waxaa noqon doontaa nin baraha bulshada magac weyn ka sameeya. balse markii la baahiyey xogta muuqaalkaasi wiilka dhalinyarada ah uu ku sheegayo in uu guursaday saddex gabdhood ayaa islamarkiiba waxaa social media soo dhexgalay dad fara badan oo wiilkan aqoon u leh islamarkaana sheegay inay yihiin waxaasi warkaasi been abuur islamarkaana bulshada ku khaldoomin. dadkaas dhalinyarada u badan dad yaqaan asaga ayaa waxa ay sheegeen in gabdhahan uu soo siiyey lacag islamarkaana ku qanciyey in ay lacagtaasi qaataan islamarkaasna ay warbaahinta kala soo muuqdaan. wuxuuna sidoo kale u ballan qaaday in uu wejiyadooda u qorin doono islamarkaasna aan warbaahinta lala wadaagi doonin islamarkaana cod keliya ay kula wadaagaan dareenka uu asaga uu rabay markaas in laga bixiyo ama ay bixiyaan. gabdhahan ayaa sida loo badinayo waxay yihiin gabdho danyar ah islamarkaana ninkan uu u adeegsaday arrimo dhaqaale iyo sidoo kale xaruntiisa ganacsi oo ay ka heli karaan sida loo badinayo waxyaabo fara badan oo lacag ka bixin lahayn islamarkaana uu siinayo haddii ay wax u sameeyaan. dad fara badan oo Soomaaliyeed oo wiilkan aqoon fiican u leh ayaa waxay sheegeen in uu maalmihii ugu dambeeyay arrimahaasi uu ka hadlayay islamarkaana dad fara badan ay sheegeen inay waxaan yihiin wax been abuur ah islamarkaana la dhoobay islamarkaana uu ninkan ku doonayo inuu noqdo nin caan ah siduu caan ku noqday Master Taakaye afarxaas leh. dhalinyaradan soo bandhigtay xogtiisa barafilkiisa Facebook iyo sidoo kale waxyaabo fara badan ayaa waxa ay sheegeen in ninkan gabdhahaasi la yaqaano islamarkaana hadda loo sheegay ehladii ay arkeen ehladii dhalay gabdhahaasi islamarkaana ay warbaahinta la wadaagi doono inay yihiin waxaasi wax been abuura islamarkaana uu ninkan soo dhoobay kuna doonayo in uu magaciisa kor ugu qaado sidoo kalena xaruntiisa ganacsi ay ugu noqoto mid xayeysiin ahaan ay bulshada ku gaarto sidaasna ay ku barato. dad fara badan ayaa islamarkiiba waxay arkeen ninkan inuu yahay nin beenaale ah intooda dadka ah islamarkaana waxay muuqaalka ka dhex arki karaan waxyaabo fara badan oo been abuur ah. ninkan sida uu sheegay waxaan deganay uu yiri laba qol oo keliya balse telefishinka caalamiga Universal TV gurigu kasoo duubay warbixinta waa guri runtii aad u weyn oo la isdhihi kara qiyaastii waa 5 qol. waa mid labaad gabdhahaasi waxa ay markii hadlayaan laga dareemi karaa hadallo fara badan oo run ahaantii loo qaadan karo inay been yihiin islamarkaana wararkan sheegaya in ninkan dhalinyarada ah waxa uu sameeyay ay yihiin kul wax been abuur ah islamarkaana magac ku raadinaya si xoojinaya. wiilkan ayaan la ogeyn sababta rasmiga ku kaliftay inuu arintan sameeyo balse dad fara badan ayaa waxa ay dareensan yihiin kaliya inuu doonayo inuu magaciisa caan u noqdo islamarkaana social media sida uu caan uga noqday Master Taakaye afarxaas leh oo asagana doonayo. waa arki doonaa waxa ka soo kordhaa sidoo kale muuqaalo ayaa baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay lagu wareejinayo ku saabsan ninkan oo iibinaya xarun cosmetics islamarkaasna qasaya waxyaabaha dumarku ku cadeeyaan ee loo yaqaano waxyaabaha isku cadeeyaan cosmetics la qasqaso. haddaba wiilkan dhalinyarada ayaa la ogeyn sababta ku kaliftay rasmiga siyaastii waxaa la soo ogaaday in guurkaasi uu yahay mid been abuur ah islamarkaana uu ku raadinayay magac iyo sidoo kale inuu ku helo
dad fara badan oo xaruntiisa ka adeegta isla markaasna ka soo raaca warbaahinta xaruntiisa cosmeticskan ay u noqoto mid xayeysiin ay u noqoto si uu bulshada fara badan u gaarsiiyo fariinta uu markaasi dirayo. waa arki doonaa wixii kasoo kordha. haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe saaro, gambaleelkana furo, sii share garee muuqaalka oo la wadaaga asxaabtaada. mahadsanid. tiktok gacmaha qofkii keen allah ka gooyo. naag tiktok isticmaasha hadda iyo wixii ka dambeeya waxay ka tahay siil sagaaran macnaa magaca ilaah. qoftaa intaas baranay abuu sawir isaga ka xayshosiis saa quruxdeeda inta la yaabay aan waxaa bisdaaba xural ayn jannada forfeit ka soo qaatay miya saa qoftii inta habeenkii la bista barfuun $2 ay yaalay isku barfuumiya u tagay saaxiibno. qoftii hadda marka u tagay bismillah qof 9 bilood xanuunsanaa sariirka soo kacay muddaaniyo. daawadayaal ninkan idiin muuqda ee qaaday wadadii uu jeexay afraxaas leh Master Takeya ayaa waxaa la soo ogaaday in ay ahayd guurkiisa mid been ah, isla markaasna uu rabay kaliya inuu magac sameeyo. haddaba ninkan ayaa lagu magacaabaa Xasan Malabsade, wuxuuna ku nool yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana uu leeyahay goob lagu gado gabdhaha waxyaabaha isku cadeeyaan ee cosmeticska. haddaba daawadayaal xogta ninkan oo dhammaystiran iyo sidoo kale markhaatiyaal ka markhaati furaya ninkan inuu beenaale yahay alihii Malabsade Universal soo fadhiistay ali soo diray akoonkiisa dad yaqaan way iga sheekeeyeen muxuu ahay ninkan ciyaalka xaafadda waayla wax uu haayo male meel yaro oo weyn ku taalo oo qasqas lagu gado wuxuu ka yahay caawiye nin u gadgadaa odayga waxa la waa ka wareertaa la odayga wuxuu isku day wax walba hal heeso marax soo qaado waa kala socon weysay odayga baraanka sameeyo maagay waa socon weysay vlogyo bilaab waa socon weysay vloggiis waa kana vlogger oo cadaado uu ku tagay odayga waxaan isla leeyahay Takeya qaraabo yihiin isku cidda waaye odayga Takeya isla ku dayso Takeya adeerka wuxuu soo caan buux isnaay afar naag adigana saddex sheego zakaka waa faan socon weysay baraanka isku day zakuka waa socon weysay waa mari weysay waxyaabo badan isku day xakaaka tulka kaaka marka odayga alaabtaan hadda inuu lagu day isku day abo profilkiisa dadii qaar noo soo dir waa kana waa la helay akoonkiisa la fiir ninka iska daa naagu guursaday أساتيس ويا بالعكس دحلو كخبيستها براد حكى حالة الزكاة كتانيكا marka odayga waxa la nahay abu anaga nagu diin wal soo qabtay beenaalihi hay'adina haya balse intaan ugu soo gudbin fadlan muuqaalka in loo gare sidoo kale kanaalkeena ku soo biir adigoo dhahaya subscribe gambaleelkana furinaya si ay kugu soo dhacaan muuqaalada ugu horeeyaan soo gelino. mahadsanid. ninkan idin muuqda ayaa waxaa la yiraahdaa Xasan Malabsade, waxaana ku nool yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. 24 saac ay ugu dambeeyay ama labadii maalmood ugu dambeeyayna wuxuu si weyn u haystay social media asagoo soo bandhigay isla markaana warbaahinta la wadaagay in uu yahay nin saddexaas la isla markaana saddexdan gabdhood oo asaga qabo. arrimaha beenta keenay isla markaana lagu ogaaday ayaan idin sheegi doonaa, balse ninkan ayaa muuqaalku